kulankan oo saacado qaatay ayaa magaalada Cape Town waxa uu xalayto ku dhaxmaray xubno ka socday xisbiga ANC oo ay hogaaminaysay wasiiradda waxbarashada sare ee dalka Koonfur Afrika Lalindi Mandisi Bandar iyo qaar ka mid ah ganacsada Soomaalida ah ee dalka Koonfur Afrika waxaana ay ka wada hadleen sidii loo taageeri lahaa xisbiga ANC ee haya talada dalka Koonfur Afrika maadaama lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada ee la filayo inay dhacdo maalinta Arbacada ah ee ku beegan 8 May. Mahad Cumar Cabdi oo ka mid ahaa ganacsatadii kulankaasi ka qayb gashay ayaa TV-ga Universal u sheegay in dadka South Afrikaanka ah ee doonaya inay ku soo biiraan ganacsiga ay ka caawin karaan xirfadaha farsamo ee u baahan yahay ganacsiga. wax ay nagala hadashay way ballaarayeen laakiin anagu waxaan kala hadalnay waxa ugu miinsanaa in ganacsatada Soomaalida oo dhinacna academic ahaan ka dhisan dhinacna ganacsi ahaan ka dhisan haddii ay South Afrikaanku ay ka codsadaan in ay dadkooda dhibaataysan ay tababaro aqooneed tababaro ganacsi iyo mataqaanaa habka ay Soomaalida u ganacsato inay bari karaan haddii laga faa'iideysto Soomaalida khibradooda ballaaran wasiiraddan waxay aad iyo aad u soo dhaweysay in ay maartay mar kastaba ay ku faraxsan tahay diyaarna u tahay wasiirada kale oo arrimahan qaabilsanna ay u soo bandhigi doonto sidii South Afrikaanka iyo Soomaalida ay isku dhaxgal lahaayeen Soomaalidana ganacsiga ay khibrada dheer ay ku leeyihiin ay khibradooda ugu wareejin lahaayeen dhinaca South Afrikaanka. kulankan oo saacado qaatay ayaa intii uu socday waxaa jaaliyadda Soomaalida ah ee wasiiradda u gudbiyeen dhibaatooyinka Soomaalida ka haysta amniga iyo sharci darrida waxaana sidoo kale Cabdiqaadir Saasa oo arintaasi wasiiradda u gudbinayay uu sii raaciyay in lala xisaabtamo siyaasiyiinta loolankooda doorasho ku soo galaya waxyaabo sababi kara in lagu xadgudbo dadka Soomaalida ah iyo guud ahaanba ajaanibta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Cabdikariin waa mahadsantahay waxyaalaha u gudbinay waxaa kamid ahaa dadka sharciyada dhibka ka haysto qaasatan sida dadka abiilka ah oo inta reject la siiyay intaasoo sana hadana abiil ah oo waxba aan qabsan karin oo sharci la'aan darteed ay waxyaalo badan mataqaana caqabado ka haystaan ayaa kamid ahaa. waxaan ka hadalnay amni xumada dhinaca mataqaana locationka dadka lagu dilo dhalinyarada la dhibaateeyo la dhaco waxaa kaloo ka hadalnay dhinaca mataqaana dadka yaryar iskuulada ku jiro matriga ama grade 12 hadda ah oo imtixaanka qaadan rabo sharci ah haysan qaarkood loo diiday inay imtixaanka u fariistaan. waxaan dhihi karnaa way aqbashay codsiga u gudbinay waxayna naga codsatay sida dhalinyarada yaryar ee iskuulka matrig dhigto kale wixii ku saabsanaa dhinaca sharciga caqabada ka haysatay imtixaanka aan u fariisanay karin oo kale inaan soo gudbino si official aan ugu gudbino kadibna ay wasiiradda qaabilsan Home Affairs-ka ama dhinaca sharciyada ay kala hadli doonto insha Allah wasiirka arrinta wax ka qaban doonto maadaama iyada ay tahay wasiirka waxbarashada sare marka natiijo badan insha Allah rajaynayna dhan walba insha Allah inay naga gudbin doonto fariin badan dhinaca dawladda guud ahaanba. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay si xawli ah u socdaan ololaha doorashada ee dalka Koonfur Afrika waxaana xisbiga ANC oo doorashadii sanadkii hore ku soo aaday iyadoo ay haystaan fadeexado la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin uu haatanna mar kale uu wajahaya loolan xoogan oo kala dhaxeeya xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Alliance oo isaguna sanadkan ay haystaan eedeymo la xiriira biila'aantii xooganeyd ee magaalada Cape Town soo wajahday sanadkii hore. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.